صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشر كنا ما أنت وحكوس بسياهي نفقد درت أباهن تهي وعشر كيلحات وحنكحل دونا عريها اللي هذا مجعيسة مغنيسيوم ومحي مغنيسيوم نانيس عريها مغنيسيوم وما جاء وعريها اللي بيتمناد كالجلك عرياشة مغنيسيوم وبركة مده أرك لباد كالجلك عرياشة تراتم كذا واللبية طبعا وليس أتم كذا وحاويان لباتن يافر لبيع الصدح كافتون كمغنيسيوم واللبو مغنيسيوم wuxuu ka mid yahay curiyaasha dhex socda geedka macnaha dhex socodka waxaan la jeednaa laga bilaabo xididada ilaa baarka geedka inta u dhaxaysa ayuu dhex qaadaa oo ku dhex socdaa yaraanta magnesium badanaa waxay ka muuqataa caleemaha hoose waxaan la jeednaa caleemaha hore ee gaboobay ama waqti hore dhab soo baxay wuxuuna muhiim u yahay sameynta cagaariyaha chlorophyll iyo qaybsamida unuga oo loo yaqaan cell division carrada waxaa ku jira in ku filan oo magnesium ah ku jirida calcium ee carrada ayaa waxay yareysaa saameynta magnesium ee sun ahaaneed taa macnaheedu waxa weeye magnesium hadday zaa'id noqoto waxay leedahay saameyn sun ah oo geedaha u daran laakiin arrintaa waxaa xallinaysa jiritaanka ay carrada ku jirto magnesium dhirtu waxay nuugtaa magnesium iyadoo ah qaabka ayoon togan waxaan ka hadlaynaa haddana waxtarka magnesium kow wuxuu ka mid yahay dhismaha cagaariyaha ama chlorophyllka oo nooca loo yaqaano A iyo nooca loo yaqaan B labadaba wuxuu xiriir la leeyahay sameynta duxda oon ula jeedna dufanka ee nudayaasha dhirta plant tissue macnaha magnesium wuxuu xiriir toos la leeyahay in dufankii lagu sameeyo geedka dhexdiisa saddex wuxuu caawiyaa dhaqaajinta fosfoorka iyo carbohydrate-ka ee geedka dhexdiisa marka fosfoorka la dhaqaajinayo meel laga qaadayo meel kale uu tegayo ama carbohydrate-ka uu geedka dhexdiisa ku guurguurayo waxaa dhaqaajiya ama caawiya waxaa weeyaan curyaha loo yaqaano magnesium oo ah kan maanta aan ka hadlayno afar wuxuu lama huraan u yahay firfircoonaynta tiro badan oo enzyme ah enzyme-yada saan hore usoo sheegnay waa isku dhisyo kiimikaad oo fududeeya falgalada kiimikaad ee ka dhacaya geedka dhexdiisa sidaa daraateed curyaha magnesium wuxuu lama huraan u yahay firfircoonaanta inay macnaha si sax ah u shaqeeyaan tiro badan oo enzyme ah haddana waxaan u gudbaynaa astaamaha magnesium yaraanta macnaha calaamadaha muujinaya marka magnesium ay ku yartahay geedka calaamada koowaad astaamaha magnesium yaraanteedu marka hore waxay ka muuqdaan caleemaha hoose macnaha caleemaha duqoobay ayay ka muuqdaan labo caleemaha hoose waxay yeeshaan barabaro jaallo ah waxayna ka bilaabaan darfaha caleenta ayay kasoo bilowdaan waxaana ku faafayaa dhanka bartamaha ayuu u faafahayaa waxayna ku faafayaan dhanka bartamaha waxaana xididada caleemuhu waxay ahaanayaan cagaar macnaha haddaan meesha ku soo celiyo qodobka labaad lambar labo caleemaha hoose waxay yeeshaan barabaro jaallo ah waxayna ka bilaabanayaan darfaha caleenta waxayna u faafayaan dhanka bartamaha xididada caleemuhu waxay ahaanayaan kuwa cagaaran sida idinka muuqan doonta sawirada aad arki doontaan saddex marka ay magnesiumtu yaraato midabka jaallaha ah wuxuu isu bedelaa kafee kadibna waxaa dhimanaya nudayaasha ayaa dhimanaya nudayaasha waxaa loo yaqaanaa tissue afka qalaad nudayaasha caleenta ayaa dhimanaya afar waxaa burburaya cagaariyaha ama chlorophyllka oo lama huraan u ah nolosha geedka sababta oo chlorophyllku waa ama cagaariyuhu waa maadada u ogolaanaysa geedku inuu samaysto cuntadiisa asagoo isticmaalaya ilayska qoraxda iyo biyaha iyo carbon dioxide-ka marka waxaa burburaya cagaariyaha waxaana ka suulaya ama ka baaba'aya midabka cagaaran inta u dhaxaysa xididada caleemaha
macnaha caleemuhu waxay leeyihiin xididdo ayay leeyihiin laba xididoo kasta inta u dhaxaysa ayaa midabka cagaaran ka baya waxay noqonayaan jaallo ayay noqonayaan halka xididka hareerihiisa uu ku harayo cagaarkii 5 haddii yaraanta magnesium ay sii siyaado waxaa daata haddii yaraanta magnesium sii siyaado waxaa daata caleemaha geedka wuxuuna u ekaadaa mid qaawan caleemahan sawirka kaaga muuqda waa caleemaha yaanyada caleenta hoosena waa geedka liinta loo yaqaano dhammaantood waxaa ka muuqda astaamaha yaraanta magnesium marka insha allahu tacaala waxaad u baahan tahay oo kaliya beertaada calaamadaha ka muuqda inaad barbar dhigto calaamadaha sawirkaaga muuqda markaas ayaa waxaad go-aan ka gaaraysaa in beertaada magnesiumta ku yar tahay iyo in kale sawirkan sidoo kale waa geedaha liinta weeyaan sidan ayay u ekaanayeen marka magnesiumtu ay ku yaraato waatana bal fiiri caleentii dhexda labada xidid dhexdooda jaallo ayay noqotay xididadana waxaa ku haray cagaarkii ayaa ku haray sidoo kale yaanyadana sidaasoo kale ayay u muuqanaysaa insha allahu tacaala casharkeena maanta waxaan ku ekeynaynaa halkaasi aan ku ekeynaynaa aad baad ugu mahadsantiin dhegeysigeena waxaan si naxariis leh idinka codsanayaa haddii aad casharka wax ka faa'iiday in aad maarta aadan iloobin inaad subscribe tiraahdid isla markaana aad like saartid aad baad u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu